gudoomiyaha Jamciyadda Nuurul Islaam Al-Khayriya oo ka shaqeysa ururinta iyo dayactirka kutubta Qur'aanka Kariimka iyo sidoo kale taakulaynta dadka tabaalaysan oo maanta kula hadlayay warbaahinta qaranka Soomaaliland xafiiska ay jamciyaddu ku leedahay magaalada Boorama ayaa waxa uu ku bogaadiyay xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi qabashada tartanada Qur'aanka Kariimka isagoo sidoo kalena hanbaliyay xaafidul Qur'aanka ka qayb qaatay tartanadii kala duwan ee lagu qabtay dalkani Soomaaliland isla markaasina in la sii kordhiyo tartanadaasi gudoomiyaha Jamciyadda Nuurul Islaam Jamaal Yuusuf Maxamed oo ka hadlaya arrimahaasi ayaa waxa uu yiri aniga ku hadlaya magacayga iyo magaca jamciyadda iyo ka dhamaan xubnaha meelaha kala duwan ee joogan waxaan ugu talagalay inaan ku hambaliyeeyo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed musaabaqadaasi Qur'aanka Kariimka ay qabteen ka madaxtooy ahaan waxaan ugu magacambaliyeynaa maadaama ay meel fiican ka istaageen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa Qur'aanka waxa kale oo hambalyeynaya dhammaan musaabaqaadkii marka Qur'aanka Kariimka la qabtay ee lagu qabtay marka wadanka ee kala duwanaa iyo dhammaan ardaydii marka ku guuleysatay kaalmaha hore iyo ardaydii kale waxaan iyagana si gaar ah hambalyeynaya guulaha ka soo hoysay dalka aynu jaarkanahay Djibouti waxaan leeyahay dhamaantoodba maca lajnadii marka imtixaanaadka qaaday ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro waxaan leenahay hala sii kordhiyo musaabaqaadka iyo tartanadaasi iyo dhiirigelinta marka hala sii kordhiyo sidoo kale gudoomiyaha Jamciyadda Nuurul Islaam Al-Khayriya oo hadalkiisa sii wata ayaa baaqo diray guud ahaanba ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan Jamciyadda Nuurul Islaam Al-Khayriya waxay u taagan tahay ilaalinta iyo dayactirka kutubta Qur'aanka Kariimka waxaan u dirayaa marka baaq dhamaan cid kasta oo muslim ah oo maqasho marka hadalkayga in la ilaaliyo kitaabka Qur'aanka waa Jamciyadda Nuurul Islaam waxay ka soo dhex ururisay kutubta qaarkood meelo khashina iyagoo yaala meelo aan munaasib ahayn iyagoo yaala saadirtee sida markaasi loo xifdiyo ee loogu dadaalayo xifdigiisa ayaa muhiim in loo ilaaliyo kalaamka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa Cabsalaan Saaha telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama.